barkhad jaamac batuun afayeenka xusbiga mucaaradka waddan iyo sidoo kale aqoon-yahanad Sucaad Carmiye ayaa doodo kala duwan ka keenay qodob ka mid ah dastuurka Soomaaliland oo ka hadlaya jinsiyadda Soomaaliland darnimada. Sucaad Carmiye ayaa sheegtay in qodobkaasi uu meel kaga dhacay haweenka reer Soomaaliland. Saluugna waxay ka muujisay qodobkaasi iyadoo sheegtay inuu kaabis iyo wax ka bedel u baahan yahay. anagu waxaan state ku nahay Soomaali waayo jinsiyaddan Soomaaliland darnimaduba waxay ku xiran tahay ninkayagu inuu Soomaaliland ka baxo xamar tago inuu ku dhawaaqo waxaan sixi kara gudoomiye ku-xigeenka marka la eego xeerka jinsiyadaha Soomaaliland inanta reer Soomaaliland haddii uu inaan reer Soomaaliland halkaas ka jooga uu xamar iska tago oo ninkeedii ahaa xamar uu tago yiraahdo anu hadda ka bacdi ma aaminsanin Soomaaliland Soomaali weyn baan automatically aan been sheegayo Soomaaliland nimada way ka baxaysaa iyada jinsiyadda naftigeeda in wax badan laga saxaa ayaa muhiima waxaa laga saxayaayo kale inaan reer Soomaaliland hadduu gabadh Oromaa guursado ama mid Xabashiyada habeenkaa uu meheriyo waxay noqonaysaa Soomaaliland inanta iyo caruurteedii intaba banaanka xuduudda laga dhigay marka horta waxyaaba badan baa jinsiyadda laga shaqeeya inay tahay oo in dib loo eego. intaasi ka bacdi barkhad jaamac batuun oo hadalka qaata ayaa sheegay in qodobkaasi sidaasi ku saxsan yahay sidoo kalena uu xakameynayo haweenka reer Somalilandarka iyo sidoo kale ragaba. waxaan ku noqonayaa tan Sucaad Carmiye ee ah xeerkan xeer number 22/2002 xeerka jinsiyadda Soomaaliya qodobkiisa 9 anigu dood taa ka duwan baan qabaa waxaan isleeyahay xeerkaasi waa xeer mudan ciddii samaysay in lagu hambalyeeyo because waa cid garanaysay anigu kama eegaya aragtidana gender balance iyo something like that laakiin waxaan ka eegayaa mar haddii aynu dhuuxa iyo dhaqanka dhabta muwaadinimada aynu eegayno waxaan ka eegayaa cidda samaysay falsafaday ka lahayd maxay ahayd laakiin waxaan filayaa in protection material u ahaa muwaadiniinta Soomaaliya gaar ahaan haweenka muxuuna ugu ahaa wuxuu ugu ahaa xeerka qodobkiisa 9aad firqadiisa koowaad waxay leedahay inanka Soomaaliya ama inanka Somalilandarka haddii uu gabadh ajaaniba guursado gabadha ajaanibka automatically waxa uu noqonaysaa muwaadinad Soomaaliland falsafada ka dambaysa ee loo sibir saarayo waxa weeye kow waa mudnaanta muwaadinimada Soomaaliland ay leeyihiin laba waa taranta because bartu qaranku ka unkama uu ka dhismaa waa qoyskana waxa saldhigu ah hooyaduna waa warshada ubadka ama aadamaha markaa la jecelo iyo danayn uu sharcigu danaynayo mudnaanta ay leeyihiin muwaadiniintu ayuu dabar ka dhigayaa inaanay qofka hooyadii ayna dalka ka boodin ee hore ugu gacanta ugu dhigay talabaad waxay firqada labaad waa firqadii koowaad qodobkii 9aad ee xeer number 22 xeerka jinsiyadda 2002 firqada labaad waxay iyaduna sidoo kale leedahay inanta Somalilandarka ee guursataa qofka jaanibi waxay luminaysaa jinsiyaddeeda shardigu xeer kastaba leeyahay haddii ay qaadato way luminaysaa maaha waa kaloo haddii ay qaadato jinsiyadda ninkeedu wato marka haddii Sucaad Carmiye xabad cadaalad guursato waa tusaale mar uga socdaa waa idin soo dhaweynaya sawir ay ku qanacdo inay ninka ay guursatay ee Ingiriiska jinsiyaddiisa qaadato double citizenshipka laba kaadlaynta ayuu xeerku ka hortagay marka haddii markaa haddii aynu leenahay waxeerku ma doonaya sorry ganaan lahaada waxaan doonaya xeerkuun inaan sawiro waa la jeclada xeerka ka muuqata mar kale ayay Sucaad Carmiye mikrofoonka la wareegtay waxaana ka jawaabtay hadalkaasi barkhad jaamac batuun iyadoo si cadhal u hadasha ayaa waxay tidhi marka walaalkay barka wuxuu u doodaa xuquuq la'aanta haddana wuxuu difaacayaa xaq darro
kuma qabato horta waa mid ta kale marka uu leeyahay inantu hadday qaadato horta wixii personal ku kadhigo anigii baabuntay magacaygu ku waashay laakiin ise waxaan ka hadlaynaa dhammaan hablaha reer somaliland oo dhamma kaaday marka uu leeyahay hadday jinsiyadiisu qaadato waxay waayaysaa jinsiyadii somaliland war anaa sita jinsiyad kale oo british ah oo somalilandara waxaa jira boqolaal kun oo reer somaliland oo jinsiyado kala qaatee miyay waayan jinsiyadii somaliland su-aashaasoo taas maaha maxaa marka ay guur qofku ku qaato ay qofku u luminaya waad aragtaa waxaanoo dhanban rag cadhaysan ayaa qoray takalese markuu ajnabiga uu ku tilmaamaya nin cad oo la guursado wuu khaldan yahay ajnabiyaa ah ajnabi waxaa ah reer puntland baa ah ajnabi waxaa ah muxuu ahaa qoladan kalinka shanaal baa ah qolada n f d baa ah reer jabuuti baa ajnabiya dadkaasoo dhan haddaad isbaadhaan qof walba abti iyo inaabti iyo tolbu ku leeyahay markaad inan somalilandara oo nin soomaaliyeed guursatay oo muslina oo gelinaysa guursatay aad tiraahid ajnabi bay guursatay carruurtaydu banaanka ha yaallaan oo yaani qaadan nationality waa xaqdarro xaqdarraanu tawaaka waxaa kaloo xaqdarro ah haddaad isir ka sheekeynaysid xitaa qabaayilka deganaa somaliland oo maanta inala ah wada somalilanda berri haddii uu yidhaahdo anigu waxaan qaatay xamar baan tegay ma caruurtiisii iyo gabadhiisii intaba nationalitiga somaliland way waayeen runta haddii loo noqdo aadka socod mahadsan tahay taasina waa xaqdarro markaad leedahay protection baa la sameeyey waxaad ogoshay yamani 10 sano dabadeed inuu noqdo somalilander baad ogoshay inantii somalilanderka ahayd iyo caruurteediina waxaa tiri nagama mid noqon karaa dee waad ka hor imanaysaa insasaxa hadalladan iyo doodan ay isweydaarsadeen barkhad jaamac batuun iyo sidoo kale sucaad carmiye ayaa imanaysa kadib markay caawa ka qayb galeen dood ku aadan muwaadinka reer somaliland jinsiyadiisu maxay noqonaysaa وخضر إسماعيل محمد يا الله إسماعيل وركم مقبهية عن قبض عصتون فورتيفي